أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وسلامتين خياري maanta waxaan soo gabagabaynaynaa akhriskii sharciga shirkadaha Soomaaliyeed qodobka boqolaad oo ka hadlaya cawaaqibka fasax la'aanta shirkadaha ku soo gala Soomaaliya ama ka shaqeeya sharciyan shirkadaha shisheeye oo aan haysan ogolaanshaha ganacsi kama qaban karto gudaha dalka Soomaaliya wax hawl ah ama ganacsi ah shirkadaas iyo wakiilkooduna dacwad kama oogi karaan baa maxkamad ku taal Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu soo urursado dayn ama uu u fuliyo waajibaad contractisa ilaa inta qoraalka ogolaanshaha lagu siinayo shirkadaha shisheeye ama laga gelinayo diiwaanka maxkamaddu way joojinaysaa dacwad ay soo oogaan shirkadaha shisheeye ilaa inta ay ka hubsanayso in shirkadda shisheeye ay leedahay qoraal ogolaansho marka diiwaan hayahana arrinta xaqiijinaya haddii maxkamaddu hubsato in shirkadaha shisheeye loo geliyo qoraalkeeda ogolaansho diiwaan hayaha maxkamaddu way sii bilaabi kartaa dhageysiga dacwadahaas marka waxa muhiim ah markii shirkad kasta oo aad heshiis la galayso ama deyn kala qaadanaysaa inay diiwaan gashan tahay in la hubiyo halka xigmadaas ku jirta haddii alla idmo marka qodobka boqolaad baa ka hadlaya qodobkiisa saddexaadna wuxuu ka sii hadlayaa shirkadaha shisheeye oo ganacsi ama hawl ka wada gudaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo fasax ogolaanshaha haysan waxay mutaysanaysaa ciqaabaha ku xusan qodobka 86 baa leeyahay sharcigan shirkadaha shisheeye oo ganacsi hawl ka wada gudaha dalka Soomaaliya oo aan registered ahayn oo license ka duwan gashanayn wasaaradda ganacsiga cidda wakiilka ka ah shirkadda ama aan u diiwaan gelin qoraalka ogolaanshaha ama been abuur samaysa qodobkaas qabanaya garyaqaanka guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku furaya ashkato lid ku ah shirkadaha shisheeye maxkamadda awoodda u leh ayaa qaadaysa markay maxkamaddu hesho in shirkadaha shisheeye iyo maamulkeeda ama wakiilkeedu uu qabtay haddii alla idmo hawl ganacsi marka waxa waaye shaqo kale oo gudaha ka hayo iyo wax kasta oo la xiriira qodobka 14aad ee sharcigan maxkamaddu way soo saari kartaa baa leeyahay xukun joojinaya shirkadaha iyo maamulayaasha iyo shaqadaas ganacsi ee socota qodobka shanaadna wuxuu ka hadlayaa waxba aan loo dhimayn haddii aan qodobka koobaad iyadoo aan waxba loo dhimayn biiro qodobkan faqradiisa koobaad tii hore macaamilka ganacsi ama hawlaha ay shirkadaha shisheeye ka samaysay gudaha dalka Soomaaliya iyadoo aan helin qoraalka ogolaansho ugana jirin baa diiwaan hayaha waxba yeeli mayso ansaxnimada ficilada shirkadaha shisheeye kamana joojinayso inuu iska difaaco ashtako lid ku ah oo lagu oogay way isdifaaci karaan gudaha dalka Soomaaliya laakiin ma garanayo sida haddii la yiri maartay qodobka koobaad haddii la yiri sharciga shirkadaha shisheeye oo aan haysan ogolaansho ganacsi hawl midna kama qaban karto gudaha dalka Soomaaliya shirkadda iyo wakiilkooduna dacwad kama oogi karaan maxkamad ku taal Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu soo urursado dayn ka maqan ama u fuliyo waajibaad ilaa inta qoraalka ogolaanshaha laga siiyay shirkad shisheeye laga gelinayo diiwaanka inay isdifaaci karaan maxaa marka keenay arrintaas waa in la faahfaahiyaa dhinaca sharciga ogolaansho siinta shirkadaha shisheeyana waxaa la yidhi magacooda shirkadaha shisheeye waa inay u keenaan qoraalka ogolaanshaha lagu siiyey diiwaan hayaha si ay u diiwaan geliyo si waafaqsan qodobka 14aad ee sharcigan sida uu sheegayo oo ah magaca saxda ah oo ay qaadatay dalkii lagu aasaasay qaabka shirkadda loo aqoonsan yahay sharciga dalka lagu aasaasay ciwaanka xarunteeda dhexe iyo taariikhda uu ka bilaabmay ama la filayo inuu ka bilaabo ganacsiga ama hawsha ay dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka qabanayso haddii sanadkan la diiwaan geliyo oo la dhaho 2030 ay shaqo ka bilaabaysaa ama shidaalka qodaysa wax ka beddelka qoraalka ogolaanshaha waa 102 haddii shirkad shisheeye ay daruurta ku kaliftaa leeyahay inay wax ka beddesho qoraalka la diiwaan geliyay oo ogolaansho lagu siiyay si ay uga ganacsato ama hawl uga qabato dalka waa inay u keentaa diiwaan hayaha si uu diiwaan geliyo si waafaqsan qodobka 13aad samaynta qoraalka ogolaansho siinta marka halkaas waa qodobka 103 weeye shirkadaha shisheeye ee ogolaansho loo siiyay inay ka qabato ganacsi ama hawl gudaha dalka
isla markaana ogolaansho la siiyey ilaa taariikhda dib loogu noqonayo ogolaanshahaas. Shirkadaha shisheeye ee la siiyey ogolaansho in ay ka ganacsadaan ama ay hawlo ka qabato dalka waxay dalka gudihiisa ku yeelanaysaa xaquuqo iyo mudnaan la mid ah shirkadaha dalka haddii aysan jirin xeerar kale oo ka duwan sida waxaana ku waajibaya mas-uuliyadda la mid ah shirkadaha wadaniga ah. Way isma dhaamaan. Qodobka 16aad ee sharcigan ma siinayo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya awood ay ku nidaamiso shirkadaha shisheeye oo ay ogolaansho siisay dhismaha aasaaskooda, jiritaankooda iyo kala diridooda. Marka ogolaanshaha kala noqoshada shirkadaha shisheeyena waa 104. Shirkadahaas ogolaansho u haysatay shirkadu ogolaansho hore u haysatay inay ka qabato ganacsi ama ka fuliso gudaha dalka Soomaaliya waa ka tanaasuli kartaa ogolaanshahaas iyadoo u gudbinaysa diiwaan hayaha. Qodobkaas 13 baa qeexaya ciwaanka waraaqaha ee wax lagu diri karo waafaqsan qodobka 116 ee sharcigan. Ciwaanada xarunteeda dhexe waxaasoo dhan bay qoraysaa. 13 iyo 72 loo fiirinaya. Wargelin dib u noqosho ogolaanshaha shirkadaha shisheeye. Haddii dib ula noqosho ogolaansho u dhaco 104 baa loo fiirinaya. Haddii shirkadaha shisheeye qoraal dib ula noqosho loo diiwaangeliyey si waafaqsan qodobkaas 104 aan laguna gaarsiin karin habraacii u diiwaangashanaa waxa waaye la helo waa in habraac loo helaa wargelineed dalabka shirkadaha shisheeye 5 maalmood kadibna markii waraaqaha loo diro taariikhda ku qoran waraaqaha helitaanka ee dib loo soo celiyey oo shirkadda shisheeye soo saxiixday. waxaasoo dhan baa la eegayaa. Qodobkan faqradiisa koowaad ma telimaysaa la yidhaha habka keliya ee waajibka ah ee lagu wargelinayo shirkadahaas. 106na wuxuu sheegayaa shirkadaha shisheeye oo diiwaan hayuhu diiwaan geliyey. Marka 16 baa u dambeeya qodobka kala duwan ee kala guurka la dhahaa shirkadaha jira. Shirkad kasta oo 106 waxa waaye qodobkan 107 diiwaan hayaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa mid jirta waana lagu dhaqayaa sharcigan oo dhowraya xuquuqda iyo waajibaadka shirkadaha saamileyda iyo maamulayaasha diiwaangelinta iyo ciqaabaadka. waa 108 qodobka 13aad baana lagu maamulayaa. Shirkad kasta waa inay diiwaan gelisaa si waafaqsan sharcigan 30 maalmood gudahood kadib taariikhda dhaqangalka sharcigan iyadoo u keenaysa diiwaan hayaha qoraal codsi diiwaangelin shirkad jirta si uu diiwaangeliyo kaliya waafaqsan qodobka. Shirkad kasta oo jirta oo ku guuldareysata ama diidda inay ku keento diiwaan hayaha si uu u diiwaangeliyo waqtiga ku xadidan qodobkan faqradiisa hore ama bixin weyda khidmadda adeegga diiwaangelinta, shirkaddu waxay mutaysanaysaa ciqaab waafaqsan qodobka 86aad. Diiwaangelinta shirkad jirta waxaa qeexaya qodobkaas 19 baa dib loogu noqonayaa. 109 waa diiwaangelinta shirkad jirta. 109 waa in la iska hubiyaa. 110na saameynta diiwaangelinta shirkadda jirta. Ogolaanshaha jiritaanka shirkadaha wax ka beddelka qoraalka diiwaangelinta shirkadda waa 112. 113 waa shirkadaha shisheeye ee jira waa shaqada diiwaan hayaha. 114 waa diiwaangelinta iyo ciqaabaadka ka dhasha ogolaanshaha la siiyo shirkad shisheeye ee jirta. 116 waa diiwaangelinta ogolaanshaha shirkadaha shisheeye. 117 waa ogolaanshaha shirkadaha shisheeye jiritaankooda. 118na waa bedelaadda ogolaanshaha shirkadaha shisheeye ee jira. 119 waa xeer nidaamyaha wasiir waa arrinta wasaaradda. 120na waa awoodda beddelka iyo laalista sharcigan. 121 waa baabi'in. Sharcigan waxaa lagu baabi'inayaa dhammaan shuruucda iyo xeerarka ka hor imanaya baa leh. Haddii shuruucdan sharci kale ka hor yimaado waa dhaqangalka sharcigaana waxa waaye faafinta rasmiga ah wey. Intaasaan kusoo koobaynaa maanta.